gelin waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnay 37 iyo digrii iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnay kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaaye waana la tashanaayo waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula tir dadba talada isiyaana raacaaye waxaa kaloo iyadana xusuus mudan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunka igu bilowda aniga markaa macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo iigu yimid waaye xanuunka markaa ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegaayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa meel condition waxa ingiriis lagu dhahaa soomaali sardhabanaa lagu dhahaa markaa sardhaban anigu kale u garanaya soomaaliga waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa idinkana wax kale u taqaanaya kaani sardhabanaa u aqaanaa saas laajligeed sardhabankaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay isku soo kacaayay qabaysanaayo salaadeed waa tukanaa cunto waxaa cuni karaa cunaaya bad laakiin ilaa hadda aan idinla hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunayaan laakiin mana isuxmi soo uraayaan waxnana ma ii dhadhamayaan marka waa mar ilaahay qadartana waan aaminsannahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaas albaabku ay xiran yahay keligii inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ila nool midnana hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka haddaan aadana waa ii keligay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinayna dadka muslimka kuma dhacay iyo waxaasna waa dhammaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaalo ku dhacaa waxba ku dhacaa diintaan rabta aaminsanaa waxaani waa cudur qof kastoon ku dhacaya laakiin la suroonaado oo la isku xiro qufacaan lahaa qufacii waa iga yaraaday aad u iga yaraaday qufaca marka astaamahayga saasay ahaayeen qofka si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi maaragtay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynayn labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carro ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa aka ka sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka markii isbitaalka la geeyo aan isbitaal lama geeyo alxamdulillah ma u baahanba gurigaaga joog say ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga hadaad neefta ku gacishanta bas masaawac neefna meeyo ilaahay meeyo celin alxamdulillah wa fiicana hadana waa soo reysanayaa xilligan oo kala qadhow badan ay saaknaa jirto hadda ay masaarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaasta markii lagu wacmo kula raaci karaba ina ogtiin kala ma aqaan kula raacayo haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto had testiga wayba yareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheedu waxaa waaye absolutamente agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagax ayaa uga sii daraya xanuunkii haaya okay hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyo marnaba aad ka dhaxay laakiin reality-ga waxaa dadkaaga waa la soo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 berina weliba guriga inaad ku jirtiin waay maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinta oo guriga idin kula noolaa marka waa cid la ciirsi la-aan dadka badanaa xaalad adagaa lagu jiraa waxaan si gaara rabaa inaa uga hadlo oon dul maro maanta maadaama markii ugu horreyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkina aada ugu dheeraada ma rabo marka waxaan rabaa inaan aada uga kala hadlo xilligan oo kaleeto xilliyada walwalka badan yahay warwarka ku haynaya aada u badan yahay xilligan oo kaleeto marka haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligan oo kale anxiety aada u badan yahay because anxiety waa warwar maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda warwar taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso
nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid male laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaad raacdo inaa ahaato qof updated ah oo waxa jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariida coronavirus waxaa ka hor imaanaya wadaytas carabi ahaa lahaa ingiriis ahaa lahaa wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alertoo la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax ma qaban kartid haka adina dadaasho lagugu leeyahay dadka kalena aadan xasina irsaaqada ka bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inaan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaana aad joogto ama shaqey ama shaqeyn xilligaan adag ee lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaa shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna idana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishan maanta 2 waayo bisha abril 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaya halkaasaana laga bilaabaya 6 abril lagaga bilaabaya lacagta lagugu caawinayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abril ee sanadka 2020 ilaa 6 kale abril ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahay yaa bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaa sida wadaaya وتكسر كو عررايا قيسوس بدنا أركايا قيلة ضد السيرس بعواي تكسر دعوة معناها سلف امبلايد تاعي قفص اسكس وشقيستا ما دام أعطى قفص اسكس وشقيستا معناها هذا حواي دولته ويكو كبسها سلف امبلايد كي بدكعها أما تكيس كود وشقيسنا ولا كبويا أيضا لكن حلقة هذا سبكوان لوجو باللعبة بشان لما كذا بشان هكذا إن اللوجو باللعبة أيضا أو يرى تبو يرى بعد ذلك لكن مركز طالب وكبار انت بحضر حاسك يا عرورت حنون كينا لهاد قف امني سيستم ولا بحال مجد قف كستا كدعا حكو في عن إن هاد نسبة بهذا سوق رقاقنا بهذا سوق جوك رقاقنا اسكي إلاوة تاكسي حسنا اسكي إلاوة كوش تاكسي إذا كستمر سيرفس عمل بعد وقف سوق قف طبضا كده شقينا عمل ما بدأ غاري ما هنا المين هو كينا نحامل يحسس كذا هو كان أو دربت أورس كلا أو دربت الجنس أو المجرى يعيسى dad badan oo ku dhacay dad badan aad dhintay 563 qof aad dhimatay wadankan shala kaliya taan haday gasho aad dhimahay adagta ku jiro laakiin dadaal lagu leeyahay dadaasho ila dadaasho lagu leeyahay marka taasna wata dood baa jirta wadankan laga doodaayo sidii review loogu sameyn lahaa dib loo eegi lahaa week saddexaad hal weegaa noo dhiman saddexdii weega hore loo qabtay UK hal weegaa dhiman laakiin uma eka week intaskarin waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo degree iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnayn kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaayay waana la tashanayay waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula teertadba talada isiyana raacayay waxaa kaloo iyadana xusuus mudan inaan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunkaygu bilowda aniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo iigu yimid waaye xanuunka marka ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa mild condition waxa Ingiriis lagu dhahaa Soomaali sardhabanaa lagu dhahaa marka sardhabanaa kale u garanaya Soomaaliga waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa inkana wax kale u taqaanaya kan sardhabanaa u aqaana saas laajigad sardhabankaas oo qabanayay
waan iska fiicanahay iska soo kacaayay waa qabaysanahay salaadeed waa tukanaa cunto waxaa cuni karaa cunaaya bad laakiin ilaa hadda aan idinla hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunaayaan laakiin mana isuxmi soo uraayaan waxnana ma ii dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsannahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaasaa baabku ay xiran yahay keligee inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay saddexa ila nool midnana hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka haddaan aadana waa ii keligay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinayne dadka muslimka kuma dhacay iyo waxaasna waa dhammaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaalo ku dhacaa waxba ku dhacaa diintaan rabta aaminsanaa waxaani waa cudur qof kastoona ku dhacaya laakiin la isu roonaado oo la isku helo qufacaan lahaa qufaci waa iga yaraaday aada u iga yaraaday qufaca marka astaamahayga saasay ahaayeen qof walba si u qabanayaa dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi maaragtay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynayn labadaba waxaad ogaataan horta meel walbaad ku noosho waa carro ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka kaa sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyne maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto horta sidaas niyadin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo ana isbitaal lama geeyo alxamdulillah ma u baahan